Hello, my people. Assalamu alaikum. Arhayseeliya. Mala fiican yahay Somali people. Nibada lagu sheegayo waxa waaye balaabuuq buuq la'aan waaye. Nibada lagu sheego waa buuq la'aan. Nibada lagu sheego waa nolol waaye. Adduunkan dadka wadamada nibada haysto ma ku jiraan nolol aad u qurux badan qof kasta kuma jiro, laakiin waxay haystaan peace means nabad kaliyo. qof walba wada fiiri xaafadeeda waa la wada aamusiya waa 11:30 PM ay tahay hadda waa la wada aamusan yahay nin walba gurigiisa ku jira gurigiisa qofkaas qamarkii ku dhaxabo kii xirish ku caawo qofka lagu dhex tumoyo kii lagu dhex jijiro qofka soo qoslaa ku dhex jiro qof asagoo ooynaa ku dhex jiro qof walba qolkiisa iyo gurigiisa iyo intii asaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qoro jaar ugu jiro ay ugu jiraa problemkiisa stresskiisa depressionkiisa everybody is not happy. maalin kasta lama qoslo maalin kasta ciid ma markaan laakiin wadanka dawladda ka taliso dadka waxay u doortay inay nabadgelyo ku nooladaan. anagana maanta wadankeena waa aragto waxa ka socdo ani dagaaladii aan ku soo koray wallahi billahi maanta sida wadankeena u yaalo iyo dagaaladii marka la isku fiiriyo I don't know waxaan ku tilmaamo inkastoo hadda aan ku dhex jirin wadanka markaa ku dhex jirtid iyo markaa ka maqan tahay waxaan balaayadan la afuufay ma aragtay bahasha waa lagu dardaraya laakiin qaraxa soo saa'id qaraxa aad dadku dhameenayo waagii hore qarax ma jiri jirin marka anaga soo koraynay qarax ma jiri jirin aaga la kala xiri jiray qabiil la isku dagaali jiray Soomaali hadaan nahay qof walba xaafadiisa isku joogi jiray qofkii Ilaah u qoraa meelaha laamiga laga soo qabsan jiray xamar inaana ciyaal xamar way garanayaan dadka dhalinyarada weynaatay way garanayaan fahmi karaan laakiin wax maanta socdo wax suurtagal ma mana suurtagali doonto nabadda waa shay qaali Soomaaliya Ilaahay wadankeena wada ka dhigo dadka adduunka ku nool another country ee dagaal u aadan anaga dhexdeena waxa isku naqan mid qaana 150 country camal qabiil madax la isku gashtay beera la isku haystaa dhulaa la isku haystaa karaa la isku haystaa kaasa la isku haystaa wax sida ilmo yar oo toy ku wada ku dhagan camal toyga ilmaha yar marka toy wada siisid dhowr ciyaal marka toy ala way assist wala isku dhiga hadda wadankiisa saasa ka socoto intii ugu xumeed ugu liidatay ugu qaabka darneed oo hamaan yaalka ahaa ayaa madax ka looga dhigtay wadankeena ka marka Allah nabada ka dhigo waxaan sheegay mana qaano aqar zamaanka la sheegay waa dhul iyo dabaq oo wili dabaqyo hadda Soomaali lagu dhisaayo hal madfac hadda lagu dhufto ku kala dhaha dabaqyihii hore camal ma aha Soomaali dagaalada waa taqaanin guryaha dabaqa dhan madfac soo dhaxgalay geesu ka dhaxbaxa ina dhinac ka jajaba laga yaabo laakiin hadda guryaha xunka la saara boqolaalka kun oo dollar lagu dhisto oo meel laga keen la garanaynin hal madfac iska dhaafa hal baasuuk iska hal bambada hoos laga dhigo wada qarxaas dhan waa caro la saaro la dhoobay hadda koor waxaan ku arkay 1 years ago meel xaafadii quruxda badneed Soomaalida aad u gadanaysay aan ku arkay guriyo oo madfac ku dhacay 3 guri 4 guri 5 guri hal mar dhulka shalala bilaame hatta laamiyerigaalkii hore ma waa wax sida aluumiyowga cuntada lagu karsado camal isku soo kaduudanayaan abla ay qabtay ilaahana dhibdhaama Soomaaliya wadankan rag oo waxa u baahan yahay xoolo raayis ahayn dhul raayis ahayn beeraha dadoo dhacaynin oo maxaa la dhahay oo calooshooda u shaqaynaynin
ay u baahan yihiin waddanka Soomaaliya oo raadinaynin interest raadinayaan Soomaalinimo wadaniya niman wadaniya waddanka u baahan yahay nimankaas niman qurbi joog ah wali dadkan Soomaali joogo marka u fiirsatid waqtiga hadda lagu jiro waxaan ku tilmaami karo ma aqaanaba hadda farmaajo xaaskiisii ilaaha laga boqo qabiil idoo loo hadlaynin maamadaas oo dhulay haysataa iyo dhulay wareejinaysaa iyo dhulay gadatay idoo dhay ma aragteen qof walba horta waxaa u qarsan idan ilaahaygeeda la xisaabtamaya laakiin ani ma arkin idoo meel lagu sheegayna ma arkin kuwa iyago xamanaya waa arkaya oo social media dhahayaan meel halkaan ay guriga gadatay Mareykan dhexdiisa iyagoo dhahan waa arkaya laakiin I don't know ID markaan I don't have ID markaan Allah subhanahu wa ta'ala horta qof walba wixii bini aadan ka qaato oo xaq daro u qaato isaga Ilaahay la hortagaa soo waxaas ka culus oo jiid la yahay markaan Ilaahay waddankeena nabad nagu dhigo nabadda waa shay qaali ah peace and love nolosha wacan nabada ku imaata jecel nabada ku imaada maxaa bal isjeclaa dhalinyarada la isku dhameeynayo gabdhii wiilasha la isku dhameeynayo bish akiiris waxa igu sii daran waqooyiga nabada ah wiilasha waqooyi ebre iska dhigooyin meel halkaano la dhaho qooja cadii qooja hiblow la dhaho yaa la isku keenay meesha saaxa la isku dhameeyay idinkana isku dhameeyay meeshan wiilasha waqooyi deganaa wiilashii oo ilmeedada ilma abti ilma adeer ilma uncle abti wax isku ahaayeen dhumayl isku dhumayno wiilashii qurux badan hada arta ayaabis ever dagaalka gala ayaa socoto anaga heer koonfurna waxaas normal ay noo noqdeenba si loo jawaar isku kacalay dig idam ya Allah rahma Allah yahdiik Somali people Allah yahdiik anaga dhanba Allah na soo hanuuniyo السلام عليكم.